haddaad tahay qoys Soomaaliyeed oo ku dhaqan wadanka Mareykanka oo doonayo caruurtaada inay wax ka bartaan wadanka Rwanda adigana aad ku noolaato nolol aan buuq lahayn tusaale ahaan aabihi laga yaabaa inuu ku nool yahay wadanka Mareykanka hooyada iyo caruurtana halkaas ay mataqaana joogaan wax ka bartaan waa waxa ugu wanaagsan weeyaan sababtoo ah maciishada way jabantaa marka loo fiiriyo wadanka Kenya oo wadamada ugu dhow tusaale soo qaadanaya sidoo kale waxay ku fiican tahay wadankaas uu ku fiican yahay nabadgelyadiisa waxay tahay mid la isku haleyn karo boqolkiiba boqol. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan rabaa inaan idin la wadaago muuqaal cusub. Muuqaalkan waxa uu daba socdaa muuqaalo hore oo aan uga hadli jirnay wadamada aan isla yahay qoysaska Soomaaliyeed ku dhaqan wadamada qurbaha waxay doonayaan in ay caruurtooda halkaas nolol wanaagsan ay ku helaan sidoo kale dad badan ay doonayaan in ay ganacsiyo ka sameystaan. wadamo dhowr aan ka soo hadalnay wadamaas aan ka soo hadalnay waxaan ka xasuustaa ama ka xusi karaa wadanka Rwanda. muuqaalkaas wadanka Rwanda aan ka sameeyay aad iyo aad uga soo falceliseen waxaan marka go'aansaday in aan muuqaal kale oo yara faahfaahsan aan ka sameeyo maadaama muuqaalkii hore aan ka sameeyay wadanka Rwanda laga joogo ilaa iyo 2 bilood. waxaan rabaa inaan idin sheego intaan muuqaalka ugu gudagelin hadda kadib muuqaalada waxaan isku day doonaa inaan joogteeyo insha Allah anagoo ka hadli doono wadamo kala gedisan oo aan isleeyahay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay u xiiseynayaan in ay ku noolaadaan amaba ay ganacsiyo ka sameystaan. laakiin in badan idin kamid ah waxa ugu eedeysan ay u dhahdaan wadankeeni ayaa dadka ka raraysa dadka qurbaha jooga ma wadanka u soo rartido wadankeena ka sheekaysid. waxaan markaa isku day doonaa insha Allah inaan dhowr magaalo oo wadankeena kamid ahna aan muuqaalo ka sameeyo magaalooyinkaas oo aan isla yahay nabadgelyadooda aad u wanaagsan tahay maciishadooda way fiican tahay dadka qurbaha ka guurayana nolol fiican ay ka heli karaan. way soo socdaan muuqaaladaas laakiin bal aan guda galno wadanka Rwanda oo runtii aan isla yahay ilaa 7 qodob ka samee ama ka hadal. 7 qodob waxaan isku day doonaa inaan soo koobo insha Allah taala qodob kastana waxaan isku day doonaa inaan barbar dhigo wadanka ugu dhow ee Soomaalidu ku badan tahay ee Kenya oo aan isla yahay dad badan oo Soomaaliyeed markay rabaan inay Afrika u guuraan way u guuraan. muuqaalna waan ka sameynaa dabcan aad iyo aad u faahfaahsan oo aad iyo aad ugu soo falceliseen. waxaan rabaa inaan baro si guud horta u dulmaro nolosha guud ee wadanka Rwanda. sida la socotaan wadanka Rwanda wuxuu ka mid yahay wadamada Afrika markii la yiraahdo kaalin saddexaad ayuu uga jiraa xagga bilicda xagga corruption la dagaalanka xagga nadaafadda dadka wadanka ku noolna waa dad aad iyo aad nidaamka uga dambeeyo oo dawlad aad iyo aad u ixtiraamo weeyaan. halka haddii aan barbar dhigno wadanka Kenya ay ka jirto nolol mataqaana aad iyo aad u firfircoon oo mashquul ah oo zaxmad ku socoto laakiin xogaa aad moodo in magaalooyinka aanay sida Nairobi oo kale nadaafadeeda aad iyo aad u wanaagsaneyn sidoo kalena mararka qaarkood laga yaabo noloshaada inay halis gasho telefoonka laga qaato mararka qaarkood tuugo ay ku xisho laakiin wadanka Rwanda aad iyo aad ay noloshiisa stable u tahay horumar xawaaro ku socdana waa dareemaysaa marka wadanka Rwanda tagtid. marka si guud waxaan rabaa inaan inta ku soo koobo wadanka Rwanda anigoo marmarka qaarkoodna idin hoosgelin doona oo barbar dhigi doona wadanka Kenya. waxaan rabaa marka inaan ka hadlo qodobka labaad oo ah guryaha kirada. waan faahfaahin doonaa guryaha kirada dhowr xaafadood soo qaadan doona anigoo qiimaha idin sheegi doono. muuqaalka horena qiimaha waan ku sheegay laakiin waxa moodaa in muddo laga joogo marka waxaan isku day doonaa inaan ayna idin la wadaago. horta magaalada ugu weyn waxa la yiraahdaa Kigali oo dadku inta badan ay aadaan magaalooyinka kale yar yar dadku inta badan ma aadaanba. magaalada Kigali qiimaha guryuhu waa uu isku dheelitiran yahay oo sida Kenya kale hadii aad fiirisid 2 guri isku dhigana laga yaabaa in midkaana qiimo laga kireeyo midkaana qiimo laga kireeyo. sababtan waxa waaye dawladda Rwanda gacan bir ah ay ku haysaa yani qiimaha iyo inay jaan goyso oo qof walba wuxuu rabo uusan iska sheegin. marka qiimaha runtii aad iyo aad ay u kala sareeyaan xaafadaha gaar ahaan xaafadaha dadku inta badan ay degaan gaar ahaan dadka loo yaqaan expat dadka loo yaqaan qurbaha ka taga waxaa kamid ah xaafada la yiraahdo Kiguru xaafada la yiraahdo Kimihurura xaafada la yiraahdo Yaroturama
xaafadahaas ay mataqaanaa u badan yihiin dadka qurbaha ka yimaada. xaafad kasta waxay ku fiican tahayna waa idiin sheegi doonaa. xaafada kale uga fiican tahayna waan faahfaahin doonaa insha Allah tacaala. laakiin haddaan xogaa barbar dhigo xaafadahaas iyo xaafado ka mid ah wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi sida xaafada Westland iyo Kilimani iyo Lavington iyo haddii aan fiiriyo xaafadahan ku yaalo wadanka Rwanda gaar ahaan magaalada Kigali, amnigooda waa 100%, nadaafadooda waa 100%, qaabka dhismoodkooda waa luxurious, waa guryo mataqaana casri ah weeyaan oo badankooda waxaa ku yaalo safaaradaha, waxaa ku yaalo hay'ad NGOs waxaas dega. laakiin wadanka Kenya xaafadaas aan soo sheegay sida Lavington iyo Kilimani iyo amnigooda la isku mahalayn karo. mararka qaarkood habeenimo kaliya xaafadaas uma lugeyn karaysid, waxaa laga yaabaa in tuuga ay dhexda kugu gasho. waxaan rabaa inaan usoo gudbo qodobka saddexaad oo ah maciishada. maciishada waan faahfaahin doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan horta aan dul maro maciishada guud ee wadanka Rwanda. saan hore u sheegay maciishada wadanka waa ay jaan go'an tahay oo ma ahan waxay hayacda ama ahan oo qof walba wuxuu ku sheegi karo. laakiin hal qodob jiro oo ah in waxyaabaha laga keeno dibadda ay soo dhoofsadaan maadaama wadanku uu yahay landlocked uusan bad lahayn, waxyaabaha inta badan ay soo dhoofsadaan way ka qaalisan yihiin waxyaabaha warshadaha wadanka ay sameeyeen. markaas niyadda ku hay waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan oo wadanka Rwanda qaali ka ah in wadanka Kenya ay raqiis ka noqdaan. marka qodobka afraad waxaan rabaa inaan ka dhigo xaafadaha ugu wanaagsan ee laga dego wadanka Rwanda gaar ahaan magaalada Kigali. xaafadaha ugu fiican intaan baarayay waxaa ka mid ah xaafadaha hore aan soo sheegay. dhowr kale xaafadoodna waa idin la wadaagi doonaa oo iyagana de iska okay ah oo la degi karo. xaafad kasta waxay ku fiican tahay waa idin sheegi doonaa. haddaan ku hormaro xaafadda la yiraahdo Yerutrama waxay ku fiican tahay waa luxurious life, yacni waxaa degan dadka ladan ee dhaqaalaha haysta ayaa xaafadaas dega. xaafadda kale oo la yiraahdo Kikuyuru iyaduna waxaa dega diplomatiska iyo NGO-yada ayaa ku badan. iyaduna waxay ka mid ah xaafadaha aadka u wanaagsan ee magaalada Kigali ku yaal. xaafad kale jirta oo la yiraahdo Kimihururu. xaafadaasi naanays ay leedahay caan ah. naanays waxa waaye expat residency la yiraahdo ama expat life. waxaa inta badan ku badan dadka qurbaha ka yimaada ama cadaan ha ahaadeen wadanka bil ama vacation ha u joogeen ama ha soo degeen ama macallimiin ha ahaadeen, dadkaas ayaa u badan oo xaafado fiican oo kuwayd ah ayaa laga helaa. xaafad kale jirto oo la yiraahdo Gakiruru. xaafadaasi waxaa lagu tilmaamaa naanays ay leedahay waxaa la yiraahdaa quiet, comfort and family friendly. naanaystaas ay wadataa waa xaafad loogu talagalay qoysaska inay degaan oo caruurta lagu koriyo, waxbarashadeeda aad u fiican tahay, waxaa ku yaalo moolal ku yaalo, waxaa meel laga adeegtaa ku yaalo, nadaafadeedu way iska fiican tahay, maciishadeedana way jaban tahay. marka waa family friendly xaafad weeyaan oo aad u wanaagsan. xaafad kale jirto oo yiraahdo ayadana Ramera. xaafadan inta badan waxaa dega dadka localka ayaa u badan. sababtan waxaa waaye waa affordable xaafad weeyaan oo maciishadeeda aad u jaban tahay. oo xaafadaha hadda aan soo sheegay haddii mataqaana $1,000 lagu degaayo, xaafadan waxaa laga yaabaa $200, $150, $300 in kelida looga helo. waxaan rabaa inaan usoo gudbo qodobka ugu muhiimsan qodobadan oo ah qodobka shanaad waa fursadaha ganacsi. waxaan isku dayi doonaa marka inaan barbar dhigo xagga ganacsiga wadanka Kenya. bal maxay Kenya uga fiican tahay Rwanda, maxayse Rwanda uga fiican tahay Kenya. kow waxyaabaha ay wadanka Rwanda ku fiican tahay haddii Kenya barbar dhigo waxaa ka mid ah diiwaangelinta ganacsiga waa bilaash, waa free, wax lacag ma ahan, waana electronic. waxaa laga yaabaa 1 hour gudahood inaad ganacsigaada ku diiwaangeliso ayaa laga yaabaa. dowladuna waa ay dhiirigelisaa dadka wadanka maal gashanayo, aad iyo aad ayay u dhiirigelisaa. wax walba waa loo fududeeyaa, waa la soo dhaweeyaa. mararka qaarkood laga yaabo in markaad ganacsi leedahay canshuurta oo kale aad bixisid, laakiin inaad ganacsi yeegleesho oo aad diiwaan geliso waa so easy, aad iyo aad u wanaagsan yahay. saan hore u sheegana wax walba waa electronic oo mararka qaarkood uma baahnid inaad inta waraaqa qaadaysid aad bilin ku kala hadlay sida Kenya oo kale aad leen gashid oo tiraahdo waxaan rabaa ganacsiga inaan diiwaan geliyo. inkastoo Kenya online wax badan lagu sameyn karo, laakiin wadanka Rwanda ganacsigu diiwaan gelintiisu aad iyo aad ayuu u sahleen. marka aan barbar dhigo bal xagga ganacsiga wadanka Kenya. Kenya waxyaabo ay uga fiican tahay Rwanda markaad ganacsiga leelayso waxa waaye waa suuq ballaaran. Kenya waxaa laga yaabaa ganacsigaadi markiiba inuu balaalo, sababtoo waxa waaye
dadka ayaa ku badan marka la barbardhigo wadanka Rwanda oo dad tiro badan oo ganacsiga ka gata dad tusaale ahaan restaurant ka furtay Nairobi ama restaurant aad ka furtay Rwanda waxa laga yaabaa kii Nairobi aad ka furtay inuu u bulaalo sababtoo ah dadka ayaa badan oo traffic ayaa keenaya sidoo kale wadanka Kenya waxyaabo uga fiican yahay wadanka Rwanda waxa kamid ah teknoolajiyad horumarsan ayaa ka jirta wadanka Kenya inkastoo wadanka Rwanda aanu sahlanayn runtii waayadan waxa la sheegayaa xagga teknoolajiyada in si xawaar leh uu ku socdo wadanka Rwanda laakiin haddaad fiiriso tusaale ahaan M-Pesa kale wadanka Rwanda ma lahan wali waxa ka shaqeeya credit cardadii iyo lacagaha cashka ah ayaa meel kasta lala maraya laakiin wadanka Kenya waxa arkaysaa sida Soomaaliya oo kale in M-Pesa ay dominate garayso suuqa oo laga yaabo malaayiin dollar in ay saa u dhaxmarto systemka M-Pesa marka overall waxaan isleeyahay haddii la isku barbardhigo labada wadanna wuxuu ku fiican yahay waa wadan hadda soo kobcayo oo dhaqaalihiisu xawaaro ku socdo wadanna dad ayuu haystaa population ayuu haystaa wuxuu haystaa dekado haystaa oo bad ayuu leeyahay marka labadaba de qofka waxa u fiican asaa garanaya qodobka lixaad waxaan rabaa inaan ku soo koobo 7 waxyaabood oo wadanka Rwanda oo uga fiican yahay wadanka Kenya waxaan rabaa inaan ku hormaro nadaafada yani wadanka nadaafadiisa waxyaabaha la qarameeyay ayaa lagu tiriyaa oo nadaafad heer qaran ayaa ka jirta wadanka Rwanda oo ma arkaysid xaafadaha ugu liita ee dadka masaakiinta ay degan yihiin wax qashin kuma arkaysid qodobka kale oo wadanka Rwanda uga fiican wadanka Kenya waxa waaye amni aad iyo aad u sareeyo ayaa ka jira wadanka Rwanda oo hadii saq dhexe wadada marayso oo aad lacag fara badan gacanta ku siidatid cid ku fiirinayso ma jirto sidoo kale waxa ka jira wadanka Rwanda nidaam dawladeed oo stable ah oo degan oo aan laga cabsi qabin in mudaharaad iyo xalwo kiciyo ama waa dawladda iyo mataqaana mucaarad isku dhigan oo laga yaabo inay shacabka kiciyaan waxa kama jiraan hal dawladda ka jirta hal nidaam ka jira mucaaradku waa mucaarad aan tawar lahayn oo idaacadaha mararka qaarkood ka hadlo marka dawladda aan isleeyahay gacan bir ah ayay ku haysaa wadanka Rwanda qodobka afraad oo wadanka Rwanda uga fiican yahay wadanka Kenya waxa waaye canshuuraha aad iyo aad ay u jaban yihiin haddaad ganacsi aad ku leedahay amaba aad rabtid inaad mataqaana ka adeegatid oo kale canshuurta waa mid aad iyo aad raqiis u ah marka la barbardhigo wadanka Kenya qodobka shanaad waxa waaye ganacsi degan oo si sahlan loo diiwaan gelin karo ayaad ka helaysaa wadanka Rwanda qodobka lixaad waxa waaye magaalooyin si wanaagsan loo naqshadeeyay ama loo qorsheeyay ayaa wadanka Rwanda ka helaysaa marka la barbardhigo wadanka Kenya oo laga yaabo nadaafadda saan roo sheegay inaysan wanaagsaneyn laga yaabo in aad arkayso bulaacad meel iska marayso laga yaabo in gawaarida ay iska hor imaanayso yani laga yaabo laba gaari in ay hal wado iska hor imaadaan oo zaxmad ay abuuraan qodobka toddobaad oo wadanka Rwanda wadanka Kenya uga fiican yahay waxa waaye tayo nololeed oo aad iyo aad u degan ayaa dareemaysaa wadankaas dad ku nooshahay oo aan buuq lahayn tusaale ahaan haddaad doonayso in carruurtaada wadanka Rwanda ku koriso kale waxa laga yaabaa inaadan ka walwalin carruurtaada inuu gaari jiro waxa laga yaabaa inaadan ka walwalin carruurtaada inay mataqaan nadaafad darro u xanuunsadaan waxyaabahaas oo dhan ma arkaysid yani waa buuq ma lahan zaxmad moral waaweyn mataqaan amni darro iyo xaas ma dareemaysid waa wadan noloshiisu aad dareemaysid quiet and comfort waxa rabaa 7 qodob ee aan wadanka Rwanda uga hadlay inaan ku soo gabagabeeyo 7 waxyaabood oo wadanka Kenya uu uga wanaagsan yahay wadanka Rwanda hadii la barbardhigo waxaan isleeyahay wadanka Kenya uga fiican wadanka Kenya waxa fiican waxa kamid ah xorriyadda hadalka dawlad yani dadka caburinaysa oo internetka kontrolaysa kama jirto marka la barbardhigo wadanka Rwanda oo dawladda ayaa gacan bir ku hayso mucaaradku inta badan ma hadli karaan adigu haddaad expert tahay oo wadanka ku nooshahay siyaasadda wadanka kama hadli kartid internetka dawladda gacanta ku hayso waxyaabahaas oo dhan waxaad moodaa in ay wadanka Kenya ku fiican tahay oo wadanka Kenya waa xor waa aragtay madaxweynaha wax ka sheegaysa cid kula hadlaysa ma laha qodobka labaad oo wadanka Kenya uu ku fiican yahay marka wadanka Rwanda waxa uu yahay populationka ayaa aad iyo aad u yar wadanka Rwanda oo suuq balaaran oo ganacsi haddaad sameynayso markii bulaalayo ayaa wadanka Kenya ka helaysaa sidoo kale wadanka Kenya waxa uu ku fiican kamid ah shaqa abuur ayaad ka sameyn kartaa degdeg ah qodobka afraad waxa waaye dhaqaale ku tiirsan
wax yar oo warshado ah ayaa ka jira wadanka Rwanda maadaama saan hore u sheegnay wadanka aanu lahayn bado mataqaana dekado oo waxyaabo badan aan soo dhoofsan kareynin wadanka wuxuu ku tiirsan yahay warshado marka haddii aad tahay qof doonaya wadanka Rwanda inuu hadda aragtid inaad wadanka Rwanda ka shaqeystaan oo aad doonaysid inaad yani shaqo ka samaysatid oo aadan adigu ganacsi abuuran oo leedahay ka shaqeyso way adkaanaysaa halka wadanka Kenya laga yaabo inaad shaqo ka hesho yani qof ganacsado Soomaali aad ka hesho laakiin wadanka Rwanda warshado yar ku yaala warshadahaasna dadka wadanka u dhashay ayaa inta badan shaqo kala qof dibadda iska dhaafay qodobka laxaad oo aan isleeyahay wadanka Kenya ayaa ku fiican marka la barbar dhigo wadanka Rwanda waxa waaye anaguna wadanka Kenya qofku markuu Soomaali yahay wuxuu iska tagi karaa moolashu iska tagi karaa sidii BBS Mall oo kale laga yaabo qofka daan shaqo la'aan ahay oo shaqo la'aan yahay andho in aanu boring dareemin oo asxaabtiisa kala sheekaysto meelo badan oo barxado la fadhiisto shaah lagu cabo moolal la iska adaado waxaas oo dhan kama jiraan wadanka marka la barbar dhigo wadanka Kenya waa boring aad iyo aad ayuu boring u yahay sidoo kale qiimaha badeecooyinka la soo dhoofiyo oo wadanka dibadda laga keeno wadanka Rwanda waa qaali marka la barbar dhigo wadanka Kenya marka todobadaas waxyaabood waxay ahaayeen kuwa aan barbar dhigay wadanka Rwanda wadanka Kenya waxaan rabaa marka inaan xoogaa taabto hadda qiimaha guryaha waxaan rabaa inaan soo qaato 3 qol camal ayaan marka hore tusaale soo qaadan doonaa waxaan kaloo tusaale soo qaadan doonaa qoys ka kooban ilaa 4 ruux ama 5 ruux ayaan tusaale soo qaadan doonaa xaafadaha aan isleeyahay dadku inta badan way degaan oo magacyadooda aan soo sheegay waxaan ku soo qiimeeyay kirada 1000 halila 600 ilaa $1,100 ayaan ku qiimeeyay sababtoo ah guriga waxaa jira ilaa $3,000 aad ku kiraysan karto tusaale ahaan xaafadii aan soo sheegay Eurotrama kale waa qaali guri badan oo qaali ku yaala maadaama ay luxurious life ay tahay xaafada aad iyo aad u habaysan ay tahay sidoo kale xaafada diblomaasiga ay ku badan yihiin ama enjoyed ku badan yihiin ayadana waa qaali laakiin xaafado badan waxaa jira aan ka fogeyn oo laga yaabo qofka inuu $600 3 qol ku helo marka qaarkood $400 ku heli kartaa sida xaafadii hore aan soo sheegay aan yiri affordable xaafad weeyaan oo dadka localka ay degan aan dhahay xaafadahaas oo kale $200 $300 ayaa ku helaysa wadanka by the way lacagta isticmaal waxa la yiraahdaa Rwandan franc ayaa la yiraahdaa maadaama wadanka Belgium uu gumaysan jiray wali waxay isticmaalayaan franc ay isticmaalayaan iyadoo ognahay wadanka Belgium iyo Faransiiskii gumaysan jiray wadamadaas oo dhan inay maanta euro isticmaalayaan lacagta ay wadanka ku gumaysan jireen way ayaga ka tagay oo hadda euro u wareegay laakiin wadamadani ilaa hadda waxay isticmaalaan franc waxaan rabaa marka inaan usoo gudbo qiimaha maciishada waxaan rabaa inaan tusaale ahaan usoo qaato qoys 5 xubnood ka kooban oo kale bishii meeqa ku filan bishii oo dhan adeega waxaan iskugu qaaday kirada guriga ma kirada guriga gooni u bixiyay waxaan ku daray electricity-ga internet-ka iyo adeega la soo adeeganayo raashinka noocyadiisa kala duwan waxaan ku soo koobay ilaa iyo $600 waa anoo tusaale ahaan usoo qaatay qoys 5 ruux ka kooban marka maciishada runtii waxay ku xiran tahay qoyska ku xiran tahay rabaan inay noolaadaan laakiin qoys raba inay nolol wanaagsan ku noolaadaan si fiican mataqaana u soo adeegto waxa weeye qiimahaas ayaan anigu ku soo koobay iyadoo dadka de localka aan qiimo kala duwan ay sheegeen laakiin waxaan isleeyahay intaas hadda waxa jira dad igu yiri waxaan biilanaa $1,500 oo 5 ruux ka kooban oo magaalada Kigali degan laakiin waxaan isleeyahay wax waa too much sababtoo waxay awoodaan inay macni meelaha caadiga ah localka ah inta ka soo adeegtaan raashinkooda mataqaana isticmaalaan laakiin haddii aad mall tiraahdo waxaan ka soo gadanaa yaanyo laga yaabo yaanyada wadada lagu gadayo inay ka raqaysan tahay marka waxay ku xiran tahay qofka soo noolaado laakiin anigu intaasaan ku soo kooy dadka caadiga raba inay u noolaadaan marka xagga ganacsiga runtii aad iyo aad saan hore u sheegay dawladda waa ay sahashay gaar ahaan haddaad doonayso inaad guryo wadanka ka dhisto kale dhul yani ku yaala magaalada banaankeeda oo sababka loo yaqaano magaalada Kigali banaankeeda ayaa laga yaabaa dawladda inay ku offer garayso qiimo aad iyo aad u jaban maadaama wadanka aad dhisayso dawladda waxay isku dayaysaa inay xakamayso qiimaha aad gadayso dhulka sidoo kalena dhul bilaash almost ah oo lacag yar ah ay dawladdu ku siinaysaa marka waxaan isleeyahay overall wadanka Rwanda noloshiisa waa intaas marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagooyo haddaad tahay qoys Soomaaliyeed oo ku dhaqan wadanka Mareykanka
oo doonayo caruurtaada inay wax ka bartaan wadanka Rwanda adigana aad ku noolaato nolol aan buuq lahayn tusaale ahaan aabbihi laga yaabaa inuu ku nool yahay wadanka Mareykanka hooyada iyo caruurtana halkaas ay mataqaana joogaan wax ka bartaan waa waxa ugu wanaagsan weeyaan sababtoo ah maciishada way jabantaa marka loo fiiriyo wadanka Kenya oo wadamada ugu dhow tusaale u soo qaadanaya sidoo kale waxay ku fiican tahay wadankaas uu ku fiican yahay nabadgelyadiisa waxay tahay mid la isku haleyn karo 100% sidoo kale hadda doonaysa inaad dalxiis u aadaan wadamada Tanzania ama Kenya ama Soomaaliya aad iyo aad ay kugu dhow yihiin laga yaabaa tigidh dhan $300 ku gadatay dhaho oo aad muxuu ahay booqash ku tagtay wadamadaas marka wadankan waa wadan nadaafadiisu ay aad iyo aad u fiican tahay oo caruur lagu korin karo marka waxaan isleeyahay hadii la barbar dhigo wadanka Kenya waxa aad iyo aad uga wanaagsan wadanka Rwanda halka cilad oo jirta waxay tahay kaliya xagga waxbarashada ayay wadanka Kenya ugu horeysaa wadanka Rwanda inkastoo hadda la ii sheegayo in madaaris fara badan ay ka furayaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood wadanka Uganda iyo wadanka Rwanda wadanka Kenya ka tagay oo ogaaday in Soomaali badan ay Rwanda aadayso marka dugsiyo fara badan hadda laga hirgelinayaa oo reer waa ka jiraan laakiin way badan yihiin sidoo kale iskuulo fara badan ayaa laga sameynaya oo islaamiga marka intaasaan ku soo koobaya waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad ka hesheen sidoo kale aad si faafin doontaan si dad badan uga faa'iidaan muuqaalka xigo wuxuu noqon doonaa wadan kale oo aan isleeyahay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay u xiisanayaan inay wax badan ka ogaadaan intaanay u safrin tigid aanay goosanin kharash iyo waqti aanay gelin insha Allah taala marka muuqaalkaas soo intaan ku kulmayno waxaan kaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh